أنت محاك الله الله أكبر الله أكبر dawadayaal muuqaalkaasi aad u jeedaan waa muuqaaladii ugu dambeeyey ee ay soo duubeen ciidanka daraawiishta maamul goboleed isla markaana ay bulshada kula soo wadaageen waa goobihii ugu dambeeyey ee kooxda daacish laga qabsaday ee buuraleyda gobolka bari kooxda daacish horta jabkii ugu xooganaa abid ayaa la gaadhsiiyey goobihii ugu badnaa ayaa la qabtay oo laga qabsaday deegaanadii ugu badnaabay ciidanka daraawiishta maamul goboleedka puntland ay gacanta ku dhigeen waxaa sidoo kaleeto ay dileen ajaanibtii ugu badnayd iyadoo dhanka kalena weli howlgalku uu sii socdo la qarxinayo la duqaynayo goobihii ugu dambeeyey ee kooxdaasi ay ku dhuumaalaysanahayeen haddaba waxaan muuqaalka ku dul istaagi doonaa guulihii ugu dambeeyey ee ciidamada daraawiishta maamul goboleedka puntland ay ka gaadheen howlgalka buuraleyda calmiskaad ee gobolka bari iyo sidoo kaleeto calmadow aaggaasi howlgalkii maalmihii ugu dambeeyeyba ka socday ayaan qodobkeena ugu horreeya ku dul istaagi doonaa waxaan dhanka kaleeto dul istaagi doonaa dowladda federaalka oo war ka soo saartay howlgalkaasi waana markii ugu horreysay oo dowladda federaalka ay ka hadasho howlgalkaasi puntland oo keliga ee ay ka wado buuraleyda gobolka bari haddaba arrimaha la isweydiin ba waxay tahay dowladda federaalku maxay tahay sababta ay uga hadli la-ayd howlgalkaasi muddada dhowr iyo 10 beri ee socda ee guulaha istabajooga ay u soo bandhigayaan puntland iyo sidoo kaleeto ajaanibta tirada badan ee lagu laayay sababaha dowladdu ay uga hadli weyday u bogaadin weyday u taageeri laadahay muxuu yahay xifaaltanka xasan sheekh maxamuud iyo saciid cabdulaahi deni u dhexeeya ayaa saameyn ku yeeshay xoreynta dhulka soomaaliyeed ee puntland ay ku jirto iyadana waan dul istaagi doonaa dhanka kaleeto madaxda mucaaradka soomaaliya oo war ka soo saaray howlgalkaasi ayaa eedeyn culus u jeediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasi oo ay ku eedeeyeen inay ceeb ku tahay qarannimada iyo madaxweynenimada oo madaxweynaha soomaaliya u yahay sababta uga hadli waayey 11 ajaanibtii caddaanka ee weerarka ismiidaaminta ku qaaday ciidamada daraawiishta maamul goboleedka puntland arrintaas oo saacadihii lasoo dhaafay hadalhayn weyn ay ka dhalatay iyadana waan dul istaagi doonaa waxaan guud ahaan muuqaalkan ku dulmari doonaa xogihii ugu dambeeyey guulaha waaweyn ee taariikhiga ee ciidanka puntland ay ka gaadheen ciribtirka kooxda daacish ee buuraleyda gobolka bari soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qeybta commentiga aynu ku bilowne ciidanka daraawiishta maamul goboleedka puntland sidaan wada ogsoonaynba howlgal ballaadhan oo lagu ciribtirayo kooxaha nafla caariga ee fidmo wadayaasha ee buuraleyda gobolka bari ee ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku haya daacish ayay ku jireen howlgalkaasi si habsamile ayuu socday guule isdaba jooga ayay soo bandhigayeen waad ogsoonaydeen dagaalkii darjaale waa kay kusoo bandhigeen ajaanib tiro badan oo caddaan ah iyo weliba iskugu jira madowba oo ay dagaalkaasi ku dileen ilaa dhowr iyo 10 waa kay kusoo bandhigeen waxaa sidoo kaleeto ay soo socotayba deegaano badan ilaa 8 saldhig waa kii laga soo qabsaday shalay iyadana muuqaalkeeni hore waa ka indugula wadaagay ilaa 4 saldhig inay ciidamada daraawiishta puntland ay soo qabsadeen maantana muuqaaladaasi waa kuwii ugu dambeeyey ilaa dhowr saldhig oo kale ayay gacanta ku dhigeen ajaanib tiro badan ayayna halkaasi ku laayeen waxaa sidoo kaleeto ay qabsadeen talisyadii ugu waaweynaa kooxdaasi ay buuraleyda ay ku lahaayeen ayaa gacanta lagu dhigay waxaa dhanka kaleeto gacanta lagu dhigay daroon tiro badan oo ay adeegsanayeen waxaa sidoo kaleeto la qabtay isgaarsiintoodii oo buuraleyda qaybo kamid saldhigyadaasi ay kaga carareen welina lagama hadhin oo waa lagu sii daba jiraa oo duqayn ayaa ku socoto goobo la filahayo in ay markaasi kaga sugan yihiin buuraleyda gobolka bari ciidanku habeenkii meeshay ku hoydaan dib uguma baryaan habeen kale horey ayaa loo sii socdaa waxaad moodaa inay mur iska cidlaa ay hayaan ciidanku way dhamaystiran yihiin waxaa la socda ciidankii miina baadhista waxaa la socda ciidankii technicada iyo madaafiicda waxaa la socda kuwii isgaarsiinta waxaa la socda kuwii diyaaradaha ee droonka adeegsanayay ee baaritaanka sameynaya khibradaha ciidanku marka waa dhamaystiran yahay awoodan puntland ay soo bandhigtay ayaa aad iyo aad loo hadalhayaa oo laleeyahay war puntlandku waama jamhuuriyad qarsoon bay ahayd baa laleeyahay jamhuuriyad qarsoon ayayba ahaydba maamul goboleedba ma ahayn jamhuuriyad bay ahayd baa laleeyahay aad baa loo hadalhayaa si isdaba jooga ayayna ciidamadu guulahoodu
ay iskaga soo daba dhacayaan howlgalka marka maanta ugu dambeeyay deegaano tiro badan baa lagu qabtay welina ciidanku waxay kusii daba jiraan baacsiga kooxdaasi iyo sidii loo soo afjari lahaa guuliyo gobonimo ayaan leenahay guuliyo gobonimo dhinaca kale dowladda federaalka ayaa maanta markii ugu horreysay ka hadashay howlgalkaasi puntland ay buraleyda gobolka bari ay ka wado ee lagu ciribtirayo kooxahaasi khawaarijta waana markii ugu horreysay oo dowladdu ay ka hadasho maalmihii ugu dambeeyeyba hadalhaynteedu way taagneyd sababaha dowladda federaalku ay uga hadli leedahay u taageeri leedahay garab u siin leedahay xifaaltanka saciid deni iyo xasan sheekh maxamuud miyaa saameeyey ayaa la lahaa dowladdu maanta way sahan weyday markii hore waxay islahaayeen howlgalladii aad qaadi jirteene gobollada dhexe aad ka wadeen sidii oo kaleetay xaalku noqon doonaabay islahaayeen oo ayagu ila meeraysay ku jireen marka ciidanka dowladdu ay meel qabtaan oo degmooyinka ay qabtaan saraakiil baa loo diri iyo kuwo xasan ee ka agdhow baa loo diriyo kasoo baxa la dhihi qoladii markay soo laabataa haddana ku noqdaa la dhihi ila meeraysay hadda muddo 3 sana ku jireen walow deegaano weli la qabtay oo ciidamadu ay gacanta ku hayaan ay jiraan oo ciidanka dowladdu iyagu ay ku filan yihiin kooxdaasi laakiin hagardaamayn baa lagu waday oo mas-uuliyiin baa hagardaamayn ku waday oo waxa weeye curyaaminayey oo kolba fashilinayo ciidanka dowladda fashilin ciidanka dowladda wiil dhalinyarada Soomaaliyeed hadday noqdaan maamul goboleed iyo hadday noqdaan federaalba kooxda waa ku filan yihiin aad bay ugu filan yihiin laakiin waxaa jira siyaasiyiin iyagu mashruuc ka dhigtay oo doonayay inay ku biil qaataan oo fashilinaya jiray marka waxay islahaayeen dowladda federaalku saciidani anagii ka awood badnayn baaba hore u socon weyne wax qaban weyne saciidani muxuu qaban bay lahaayeen saciidani muxuu qabanidu waxay dhashay in maalmo kooban lagu soo afjaro gabi ahaanba maalmo kooban hadow tabtii saraakiishu ay markii ugu horreysay ay u sheegeen bayna baasha u socotaa waxay dheen anaga muddo kooban asbuucya naguma qaadanaysaa lay kuma aysan qaadaninoo ilaahay waa u fududeeyey wakaas hadda waxa weeye deegaan yar baa hadda u dhiman wax yar baa u dhiman dowladda federaalku marka way ka hadashay waxay sheegeen inay bogaadinayaan waxa weeye aad iyo aad ay u taageersan yihiin howlgalkaasi puntland ay qaaday ee kooxda khawaarijta lagaga ciribtirayo deegaanada puntland waan soo dhaweyneynaa waa ishayn waayeen de waxaa la yidhi waxan waa ceeb ka badane maan hadallaa la yidhi dhaga hadal badanna waa ku dhacay oo madaxda mucaaradka iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa maalmihii ugu dambeeyay ku dhaga hadlo la madaxda dowladda maxay u aamusan tahay madaxda dowladda may ka hadasho maxay u hadli leedahay war dowladda federaalka ay aw war maxaa ku dhacay baa la lahaa maanta ugu dambeysay madaxda mucaaradka ugu horeeya madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay oo waxay waliba ayaan darar ku tilmaameen in madaxweynihii Soomaaliya uu ka hadli waayo 12 aan dhahnay ajaanib oo cadaan ah oo weerar ismiidaamina ku qaaday saldhigyo ciidamada Puntland ay lahaayeen oo halkaas isku wada qarxiyay sababta dowladdu ay uga hadli weyday oo madaxweyne xasan uga hadli waayay waa ayaan daro inteeda leeg bay dheen waana run nimanka ajaanibta waxaa la rabay in madaxweynuhu intuu soo fadhiisto oo yiraahdo layskoodii keena oo yiraahdo hebel wadan hebel ka soo jeeda hebel wadan hebel ka soo jeeda hebel wadan hebel ka soo jeeda ayaa isqarxiyay dhibaatadaas dalkaanada uu soo aaday inuu dhibaato ka geysto inuu ummadda baabiyo ayuu dalka Soomaaliya u soo aaday inuu yiraahdo soo fadhiisto oo wadamada naftirkooda kula xisaabtama uu yiraahdo dadkiina naga xakamaysta dhibaatada u soo aaday dalkaanada inay dhibaateeyaan madaxweynihii tuqi abiyaha iyo niman afrikaana ay u shaxaatagay oo la qosla haleeyaad moodaa inuu dal fiican oo amniga uu ka imaaday oo bulsho barwaaqaysan uu ka imaaday baad moodaa halkaas ku mashquulay marka madaxda mucaaradku eed culus bay u jeediyeen waxa la yiri madaxweynihiina halkaas ku mashquulo badigu kolba in ka iibsan oo dhulkiibu boobiyo meeshaas maxaa inoo dhiman boos maxaa inoo dhiman dhul heel maxaa dhiman buu leeyahay Puntland dagaalkaas ku jirta waliba way hagardaameen xagga Puntland naftirkooda eeda culus bay u jeediyeen oo ku eedeynayaan madaxda dowladda oo xasan ugu horeeyo inay iyaguba ay kooxiiba taageersan yihiin oo hagardaameen si kastaba howlgalku si fiican oo habsami leh ayuu u socdaa si nidaam sidii loogu talagalay si ka wanaagsan buu u socdaa shacabka Puntland door muhiim ah ka qaateen oo ay ka qayb qaadanayaan gabdhuhu sabaayada iyo ilaaska ay ciidanka ku daba wadaan ganacsatadu daaweynta iyo sidoo kale dhaawacyada inay ka qayb qaataan bay iyagana iyay wadaan oo ay ka qayb qaadanayaan qurba joogta naftirkoodu dadaalay wadaan dhinaca xukuumadda madaxweynihii baa jiida ku sugan oo looma kala harin oo xukuumaddu jiida hore ku wada sugan tahay marka waa howlgal laga wada midaysan yahay oo reer Puntland aysan u kala harin weey sidaas awgeed baana keentay marka in guulo waaweyn laga gaaro oo waxa weeye ciidanku guul gaaraan howlgalku waa socdaa waan bogaadinaynaa waan soo dhaweynaynaa guuliyo gobonimo leedahay waynu eegi doonaa wixii ka soo korro mar waliba
halkan bejkan gaarka ee wariye santaag daahir ayaan igala socodsiin doonaa hadduu almiya sidoo kale warsama media labadaas ayaad igala socon kartaan fadlan haddii aad ugu cusub tahay nagu soo biir oo naga mid noqo haddii aad horey noola sii joogtayna waad ku